حما dhaqan xumada iska dhaaf inay sameeyaan ducaada ku aha ducaad kuwa ku baaqa oo ololaha weyn u galay qaanuunka Mareykanka laga soo saaray oo ah inuu ninkuna nin guursado gabadhuna ay gabadh guursato ayaa wadankeena lagu soo dhaweeyay markaas cirka la geeyay oo amaanta loo kiilay oo isaga naf la biday oo la yiri bal adduunyada noo sheeg i'tiraaf aanu helay يا سبحان الله وأردوا الناس وذلك كوي وليتي الحيوانات كوحي قرتين حتى قرواي حيواناتك لب وطا أما ددق وطا ما عرقنا سيدي إلهي في ضردها إلهي وكو أبو ريبا كسعدا حتى نرشى حيوان ككيهوس وقدها الدقي أي ننقو شرفينا وقيميننا وكم إذا كوى إلهي ورئنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا والله لا نخاف في الله لومة لائم لا نخاف كافرا ولا مسلما نقول الحق ولو كان مرا سيدو يهيبون الشيء حق وابقى لنا هذا بيه ومدنا حمانتا وأقدقينا مركاسا انت عرورتين اللي وقعيها بليا إنامو أي إسلا الصورة يا الله إسلا الصورة مركا دقن كي الضبعي عادة بني آدم كلا يقول قف لو أركو إنه يهي قف شرف له أو قيمة له ولا ربع حصوصي لقى الله رسومه كاسان ما أنت ميل والبا مواقع دور وحا كفا أفصل قبله نير يرى يين مدى نير يرى وشرف كدون يين كاقرب كساران وكاو حويان أي سلا الصويران كاسان نقنا إنه وحفي عنه أرقناه وهذا نقطة ميلاه وحلقو قرية هذا نقطة ورباهينتا أمان بالوغا كيلاي ما تشوغين عنه وضنك لكن سيدا بايانو للسعودي حقائق ذا نوع عاصية وحن شاقي أنا ما هورقه في سوق قارسيو وحن عنه آخرية وإن داعي قانكو أركي وحقيقة دي سيا قنتي سانو قاديوي تاسي وحكا لعلامة ماها وحي علامة تاي غير الدرهدة إن الحمان بالوغا باهين ubadkii oo ka noocaasa in caruurta laga ilaashadaabay habla iska daayeen inamada laga ilaaliyo Soomaa oo laga fogeeyo hadaba mabdiisuba nooca uu yahay arrinka toddobaad wuxuu yahay kashfu ducaati radiila kuwa ku baaqaya dhaqan xumada ama gaalaha noqdaan ama islaam haday doonayaan ha ku abtirsadaane arrinkooda waa indaaha laga qaado maanta waxbay qorayaan oo diinteennii bay la dagaalamayaan iyagoo af Soomaali wax ku qoraya maalmo yar ka hor baan akhrinayay mid Soomaaliya oo le Nabi Maxamed intaasuu maqaal ka soo dhigay Nabi Maxamed intaan loo waxyoon ka hor mushrik buu ahaa asnaamta la caabudo tolkii waxa looga jeedaa hadalka noocaas ama qof waliba u fahmi karaa sidii islaamku dambiyada qaar uu la dagaalamay sida gacan goynta iyo waxa maanta isbedel baa dhacay waa in laga guuro si kala loo maareyn karaa Soomaali ninka sidaa leh quraanku ma wadama oo Aisha waxay tiri suuratul ahzab inta maanta ay tahay aad bay uga badnaan jirtay yaana saxaabada quraankii qaybo kamida daadiyay xadiis waxa la yiraahdo ma jiraba ama Bukhari ha ku qoraado ama Muslime diintii intay leeg baa la dumiyay markii la xadiisba ma jiro waa kada kuwa kalena waad maqlaysaa dadka noocaas waa indaaha laga qaado dadka Soomaaliga wax ku qori kara ay muujiyaan aragtiyaha noocaas ee diinta lagu la dagaalamayo iyo falxumada ay xambaarsan yihiin dadka ducaad iyo culimaduna waa inay ka hadlaan waa dacwad ummadan ku socotee way laga hortago oo laga difaaco ilaahay baa subhanahu wa ta'ala yiri wallahu yuriidu an yatuuba alaykum إلهي التوبة بويدهم كباقيا يعني الحمانة كسو نقطان وناقا وسو نقطان ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما كوا الشهوات والراعد ونست النفتو دعون قانون حرابان وشرين واحد دون أيان حقا حمانته ولا إحدان إذن كنين دول الله حتان وناقد إلا الدوري ما أيان وكيري مجاهد مركو فصير يا يدها يريدون أن يزني أهل الإسلام كما يزنون وهالكي ugu darayd buu ka soo qabtay akhlaaq xumada
waxay doonayaan ahlul islaamku zina iyo foolxumo inay sameeyaan sida iyaguba u sameeyaan marka ilaahay kuwa waa idinka digayaa innagana waxa waajib inagu ah inaynu ka digtoonaano muslimiintana aynu uga digno xuma ee dhaqan xumada iska dhaaf inay sameeyaan ducaada ku aha ducaad kuwa ku baaqa oo ololaha weyn u galay qaanuunka Mareykanka laga soo saaray oo ah inuu ninkuna nin guursado gabadhuna ay gabadh guursato ayaa wadankeena lagu soo dhaweeyay markaas cirka la geeyay oo ammaanta loo kiilay oo isaga naf la biday oo la yiri bal adduunyada noo sheeg i'tiraaf aanu helay ya subhanallah wa arda الناس wadadka kuwii u liitay xayawaanaadku waxay garteen xataa garan waayay xayawaanaadka lab wata ama dhadig wata ma aragno sidii ilaahay fidrada ilaahay ku abuuray ku socdaa xataa nolosha xayawaanka kii hoos uga daadegay ayaan inagu sharfaynaa inuu qiimeynayna oo kamida kuwa ilaahay wari inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila wallahi la nakhafu fillahi lawmata laa'im la nakhafu kafiran wala muslima نقول الحق ولو كان مرا سيدو يهي بانو شيغينا حق وابا قداداده به ومدنا xumaanta waa uga digayna markaas inta caruurteena loo geeyay habliyo inamo ay isla sawireen yaa la isla sawiraa marka dhaqankii iyo dabciga caadada bani aadamka la eego qof loo arkay inuu yahay qof sharaf leh oo qiimo leh oo la rabo xusuus in laga laaro Soomaa kaasa maanta meel walba مواقعنا ودن waxaa ku faafsan hableeni yaryara iyo nimadeeni yaryara oo sharaf ku doonaya inay ka garab ka saaraan oo ka waxa weeyaan ay isla sawiraan kaasa inaguna aynu wax fiican oo aragnaa oo haday noqoto meelaha wax lagu qoriyo haday noqoto warbaahinta amaanun baa looga kiilay ma joogin anigu wadanka laakiin si dhabaayaan la socday حقائق نوع عاصية وحن شيء أنا ما هو ورقة في سوق قارسية وحن أنا جو آخرية وإن ده يبان كواركي وحقيقة دي سيا كنتي سان وقادوي تاسي وحكى العلامة معها وهي علامة تاي غير الدرهة إن الحمام بالله قبها هين وبتكي وكان نوع عاسة إن عرورة لقى إلى الشبابية حبل إسكت ديني نمضى لقى إلى اليسوما ولا قفوجيو هذا مبدئي سبحان الله عاوية أرنك التضباط وحية كشف الدعاة الرديلة كوا كوبا قيادة الحمضة أما قالها